weli waxaad daawanaysaan RTN TV barnaamijkii hargalka oo toos idinkaga imaanaya magaalada Nairobi. aan ku hormaro magaalada Hobyo oo ka tirsan gobolka Mudug ee maamulka Galmudug ayaa waxa ay tahay magaalo xeebeed ku taala bariga fog dhinaca gobolka Mudug. waana magaalo horay ay ku tiirsaneed xagga dhaqaalaha xoolaha iyo waliba kalluunka badda laga jilaabto. magaaladaasi waxa ay burbursaneed tan iyo intii dawladii dhexe ay dhacday sanadii 1991 maamulka cusub ee hadda Galmudug ayaa sanad iyo bar ka hor u magacaabay maamul degmada Hobyo waxaana la arkay in ay soo kaabanayso meelaha dadka ka dhaxeeya ee wadooyinka iyo isbitaalada iyo iskuulada ay aad iyo aad wax looga qabanay. haddaba wariyahayaga magaalada Kaalkacyo ayaa Axmed Khaliif Geedi ayaa eegaya magaalada Hobyo iyo waxyaabaha ku soo kordhay iyo dhaqaalaha ay hesho iyo sida hadda horumarka ugu horeeya ee maalinimada maanta ka taagan. magaalo xeebeedka Hobyo ee gobolka Mudug waxaa ka socda mashaariic kala duwan kuwaas oo u badan dhinacyada adeegyada bulshada. maamulka degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa sheegay in hadda halkaas ay ka bilaabeen ballaarinta xafiisyada xarunta maamulka degmada Hobyo waxaana sidoo kale jira in qaybo cusub lagu soo kordhinayo isbitaalka guud ee degmada Hobyo. mashruucan waxaa maalgelinaya hay'adda xasilinta sanduuqa Soomaaliya oo kaashanaysa hay'adda CPD. gudoomiyaha degmada Hobyo ee gobolka Mudug Cabdullaahi Axmed Cali Faad ayaa sharaxaad ka bixiyay mashaariicdan ka socota degmada Hobyo. bismillaahir rahmaanir rahiim dhagaxdhigan arkaysa waa dhagaxdhig loogu talagalay dib u ballaarin lagu sameeyo xarunta degmada Hobyo golaha deegaanka ama degmada xafiiska ay fariisan doonaan ama fariistaan inta hadaba maamulka degmada oo ah qayb lagu soo kordhiyo ay ka mid tahay hool la dhisayo meel hadii ay ku reeyay ay lafteedu dactin lagu sameeyo dhibaatooyin xagga biyaha roobka ay waxyeeleeyeen. sidoo kale waxa laga dhisay hadii ay ku reeyay meeshan solar lagu sameeyo ceel laga qodayo tanker biyaha ama maartay meel biyaha ay qaadaan ama biyaha lagu maartay waaska biyaha ceelisa isma lagu sameeyo oo ay fulinayso ama ay bixinayso maalgelinteeda hay'adda SSF iyadoo ay ka kaashatay dawlad goboleedka Galmudug gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo fududeynta oo ay leedahay hay'adda CPD oo ayadu barnaamijkan fududeynayso ayaa loogu talagalay mashruucan waana mid ballaaran oo degmada wax qabadka lagu soo kordhiyay qayb kamid ah. sidoo kale waxaa jira isbitaalka degmada oo isagana lagu kordhinayo qayb dhismaha qaybta umulaha oo diblis lagu sameeyo qaybo cusub lagu kordhinayo darbi weyn lagu wareejinayo solar la gelinayo hadii la ku rooyahay iyo dayactir lagu sameeyo guud ahaan isbitaalka. marka labada mashruuc ayaa maanta aan halka ku daafuraynaa oo aan rajaynaynaa fil mustaqbal insha Allah dhawaan marka ay dhamaadaan inay ku nafciyaan dadka deegaanka. waxaan uga mahad celinaynaa SSF dawladda Galmudug iyo hay'adda fududeysay intaba CPD mashruucan ay lagu taakuleen oo ah mid dan weyn ay ku qaban dadweynaha. dhinaca kale isbitaalka baahida aan qabno waa ogtiin oo magaalada Hobyo isbitaalkeeda waxa aad dib u ah in meel umuluhu ay ku dhalaan ay ciriiri ku ahayd meel yar ay lahayd isbitaal duqa ah hadda waxa lagu kordhiyay qayb umulaha loogu talagalay iyo meel umushu markay dhashay la sii dhigo oo la siixiyo. sidoo kale darbi weyn hadii la ku rooyay qalabka maartay dabka oo magaalada isbitaalka dib u ku qabay dhinaca dablaanta ay haystay oo dab joogto heli doona. magaalada Hobyo ee gobolka Mudug oo ah magaalo qadiimi ah ayaa muddooyinkii dambe waxaa si aad u soo kordhayay horumarinta dhinacyada adeegyada bulshada waxaana jiray in horay loo dayactiray wadada isku xirta magaalooyinka Hobyo iyo Wasil iyadoo hadda uu shaqeynayo garoonkii diyaaradaha ee degmada Hobyo. Axmed Khaliif Geedi RTN Kaalkacyo. kaasi waxaa wariyahayaga magaalada Kaalkacyo Axmed Khaliif Geedi oo nooga soo waramayay magaalada Hobyo oo ah deegaan ama degmo ka tirsan gobolka Mudug ee maamulka Galmudug oo ay ka socdaan dib u habeynta meelaha deegaanada arrimaha bulshada lagu xarumaha bulshada ee degmada Hobyo oo lagu wado dayactiro tan iyo 1991 markii dawladii dhexe dhacday.